Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer shaqo ku tagay Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada halkaas oo howlwadeenno ka tirsan wasaaraddaasi ay ka wadeen shaqo xilli habeen ah si ugu dhiirigeliyo sida ay uga go'an tahay shaqaalahaasi shaqada wanaagsan oo hayaan qarankooda. Howlwadeennadan ayaa ka shaqaynaya inay kala saaraan heerarka aqooneed iyo xirfadeed shaqaalaha dawladda si loo ogaado shaqaale kasta oo mushaar ka qaata dawladda halka uu ku wanaagsan yahay iyo aqoonta iyo tababarka u baahan yahay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ka dhageystay warbixino ku aadan halka ay marayso iyo shaqadan xilliga ay soo gabangabaynayaan. hawshan oo ku tilmaamay in dawladda ay muhiimad weyn siinayso. aad ogtihiin dalku muxuu u baahan yahay shaqaale noocay aan mustaqbalka u baahnahay mustaqbalkana aan leenahay nidaam dadka lagu shaqaalaysiiyo oo hal meel kaliya laga shaqaalaysiiyo musuqmaasuqa si loo yareeyo marka macnaheedu waxay tahay waa in dadka lagu shaqaalaysiiyo maxay garanayaan aqoon ahaan oo aan ahayn qofkay garanayo dhaqanka ah yaa garanaysaa waa in lagu bedelo aqoontee leedahay aqoontaasna si loogu kalsoonaado waa inaan samaynaa nidaam dadka lagu shaqaayo. Wasiir Saalax ayaa Ra'iisul Wasaare Khayre u sheegay in howlwadeennadan ay shaqada soo galeen saaka xilli hore ilaa haddana ay ku guda jiraan ku talagalkuna uu yahay inay ku soo gabangabeeyaan hawshan muddo 7 ah. Dawladda Soomaaliya ayaa ahmiyad weyn siinaysa tayeynta shaqaalaha dawladda oo lafdhabar u ah shaqada dawladda iyadoo dhawaan la soo gabangabeeyay tirakoob guud oo lagu sameeyay shaqaalaha dawladda si loo ogaado shaqaale kasta oo mushaar ka qaata dawladda inuu shaqeeyo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.